maamulka gobolka Sool ayaa maanta kala wareegay furkii ku maqnaa beel kamida beelihii dirirtu ku dhaxmartay koonfurta gobolka Sool. Furkan oo ka koobnaa 20 qori ayaa ay soo wareejiyeen beesha Khayr Cabdi iyadoo kol hore sidaas si lamid ay u soo wareejiyeen beesha Maxamed Garaade Bahar Samee furkii ay ka qabsadeen beeshan. Talaabadan ay qaadeen beelahani ayaa ah talaabo horumarinaysa nabadda la dhexdhigay labada beelood ee koonfurta gobolka Sool. Waxaana ka hadlay chief caaqilka beesha anigoo ku hadlaya afka beesha Khayr Cabdi ama qayaadeed. waxaanu saaka halkan keenay oo ku tirinay wixii laga sugayay ee ahaa hubkii muddada loo qabtay oo yar raagay oo baadidoonkiisa aanu ku raagnay 20 qori yaa saaka waxaanu u tirinay guddida nabadgelyada iyagaana laga sugayay shirkanna waxaa loo qabtay agaasinkan in qoriyahana lagaga tiriyo waxaanu u tirinay guddidii nabadgelyada ee gobolka. sidoo kale waxaa ka hadlay taliyaha qaybta booliska gobolka Sool Khaliif Afkaabiye sidoo kale taliyaha qaybta 12aad Axmed Hurre iyo odayaasha cuqaasho halkan fadhiya beesha Khayr Cabdi ee deegaanka Dharkeyn geeyo waxaan halkan isugu nimiyo halkan aan u fadhinaa waxa weeye waa hubkan oo sidii lagu balansanaa hubkii furkii labada beelood ay kala furteen xilligii ay colaadahu ka dhaxeeyeen beeshii hore halkan ay hore ugu wareejisay maantana waxaanu kala wareegaynaa 20 qori oo small army ah beesha Khayr Cabdi oo muddo badan ay ku maqnaayeen oo dib badan ka soo gaaray runtii oo qoriyihii dhalinyarada gacanta u galay waxa weeye Ethiopia iyo Puntland iyo meel walba isaga gudbay waa Ilaahay mahadi mar haday maanta soo ururiyeen oo keeneen iyagana waa uga mahadinaynaa. maanta halkan loogu qabtay xafladda wareejinta hubkii gacantooda soo galay markii ay ishayeen beesha kale ay walaalaha yihiin ay ku soo wareejiyeen dawladda gaar ahaan guddida nabadgelyada ee gobolka. odayaashu hubkan keenay waxa kaga baxay waqti fara badan, waxa kaga baxay xoog, waxa kaga baxay dhaqaale, waxa kaga baxay dadaal fara badan taasoo aad garan karto hub dhalinyaro gacantiisa galay meel walba la kala qabtay oo haddana la doonayo shayga laftiisii in dib loo soo celiyo. aad iyo aad baan odayaasha ugu mahadnaqaynaa uguna hambalyeynaa ugu salaamayna. dhinaca kale marka laga eego waxay qayb ka tahay dadaalkii nabadda labada beelood ee walaalaha mushkiladii dhaxmartay sidii dib loogu heshiisiin lahaa ee nabadda dib loogu curin lahaa talaabooyinkii lagu qaaday lagu xasilinayay ayay ka mid tahay hubka labada beelood gacantooda kala galay in la soo celiyo. beeshii ka horeysay hore ay keentay qoladeena maanta waa kuwa keenay 20 qori ayay keeneen. si kale hadii loo eego anaga laftayada dawlad ahaan gobol ahaan oo barasaab ku weyn yahay haddii noqotay ciidanka qaranka oo markay noqotay fulintii nabadeynta labada beelood doorka ugu weyn ka qaatay ilaa haddana ku jira حتى أنا أوران كرنو قيب كاها صورورين تهبكن هي كعنسين تودياش سي هبك كعنتو مر لبادو سو قال هبكي بيلها كلا قال لبدا بيلود با قيب كاها waxay tahay marka tacabkii galay oo muuqday waa guul soo hoyatay iyaduna insha Allah bidmilaahi karim waxaan rajaynaynaa horta nabaddu ayada way hirgashay wayna xasishay labadii beeloodna waa saddex kale taasay marxaati ka tahay furkii la soo celinayo marka ay sidaa tahay waxyaabaha kale harsan insha Allah bidmilaahi karim wala dhameystiri doona laakiin waxa cadaatay in dhibaatadii labada beelood dhamaatay dib looga walaaloobay hadda xaalku marayo wixii dhaahin iyo maxaan ku yiraahdaa muuqaal ahay ku kala jiray in la soo celiyo annaguna waxay noo tahay guul iyo farxad runtii dadaalkii badnaa ayaanu galay oo midho dhalay dawlad ahaan. gabagabadii gudoomiyaha gobolka Sool Cabdi Khayr Dirir ayaa bogaadiyay labada beeloodba sida habsamada leh ee ay uga qayb qaateen nabadda talaabadan wax ka taraysa nabadda waxaana hadaladiisii kamid ahaa maanta ay bishu tahay 16 oo maalin axada waxaanu kala wareegnay beesha Khayr Cabdi 20 qori oo afurkii ku maqnaa ay ka hayeen beesha kale walaalahood colaadii dhaxmartay hadeerto nabadeynta iyo guush laga gaaray. waxaan leenahay juudiga fara badan aad bixiseen iyo dadaalka fara badan aad bixiseen aad iyo aad ugu mahadsantihiin
ilaahayna waxaan ka rajeynaya bidmillahi kariim miisaanka aakhira ugu daro halkan waxaan aad iyo aad uga hambaliyeynayaa ciidamada qaranka ee ku sugan gobolka Sool jiidiisa kala duwan oo runtii door muhiim ah ka qaatay nabadan iyada ah inay hirgasho iyo kaashanaya ciidamada kale ee mataqaana qaranka runtii waxaan leeyahay hawsha aad qabateen ama dadaalka aad muujiseen waa kii qaranku idin igmaday ilaahayna waad ugu dhawaan doontaan bidmillahi kariim miisaanka aakhira heli doontaan halka ka haya labada beelood ee walaalana waxaan leenahay nabadii waa qaadateen waa fuliseen waa ku dhaqanteen waa idinka muuqataa waa intaas oo aad ku sii adkaysaan oo waxa weeye looga sii dhawaado mar labaad iyo mar saddexaad waa mahadsantiin Mawlid Ali Star TV Laascaanood